ma jeceshahay inaad yeelato timo dheer oo qurux badan walaalahayga qaaliga ah? Haddii haa tahay jawaabtaada ka faa'iideyso nafaqadaniita maanta madaxa marinayo. walaalahayga qaaliga ah waxaa u marinayaa gabar yar oo 2 jir ah ayaa u marinayaa nafaqadaniiti. maasha Allah timaha hadday qaleel yihiin, hadday ka go'ayaan siibka qaleelka timaha oo enjega markaas liid mariso wax kadib ka engagayo, timaha aan lugta lahayn oo aadka u yar way ka caawinaysaa. timaha may ka soo baxaan dulalka timaha madaxa way u fiican tahay marka madaxa saas ugu masaaj gareyso aad iyo aad ayay ku anficaysaa. walaalahayga qaaliga ka faa'iideysta waa walaashiina quruuja waxyaabaha aniga ka faa'iido waxaan jeclaa mar walbo in adikana ka faa'iidiin. walaalahayga qaaliga ilmaha yar waa loo mari karaa, dadka waaweyn way marsan karaan. marka saas in loogu masaajiyo ayaa rabaa lafta timaha si fiican ugu masaajiysid. walaalahayga qaaliga wixii aan cajabiyo oo ka helo waxa jeclaa mar walbo inaan ila wadaago. walaalahayga qaaliga waa taas waa iskugu xiray marka ka soo dhaqan hadii ii suurta gash insha Allah waa idin soo duubi doonaa. inkastoo cunug yar oo idhibaysa ay tahay hadda waxay ku fadhidaa mobile ayaan siiyay moogiye mar hore ay wax dhan kala tuur lahayd. marka walaalahayga qaaliga hadii ii saamaxdo marka ka dhaqan waa idin duubi doonaa, laakiin hadii ii saamaxin dib ma laha insha Allah. cunug yar waa igu qaata walaalahayga qaaliga way idhibaysaa marka waa kaasa nafaqada aad iyo aad ay u fiican tahay. sameeysa tijaabiyo waxa ka sameeyeen waa arki doontiin. walaalahayga qaaliga aad iyo aad ay u fududahay nigama hor dhacayo bilow ilaa dhamaad daawo insha Allah. meeshan waxa ku haysanaa kis yar oo subag subagaas waa subagee ayaa la isku haystaa, waa subag Ethiopian hadaa taqaano, maaha subag sixin, maaha subag idaad, waa subag Ethiopian. walaalahayga qaaliga baaquliga ay ku jire dabka ayaa digsi biyo la saaraysa dhex galiye si oo igu dhalaalo igu qandaco. markuu qandacaya marka madaxa ku shubto maasha Allah madaxa dhanaan ku masaajeysid marka ka dhaqdo tintaada waa yaabaysaa sida ay ku naqanayso maasha Allah. waxa ka dareemaysaa dhidhir, waxa ka dareemaysaa xariir, tinta dhan jileec maasha Allah. waa ka heli doontiin walaalahayga qaaliga tijaabiye insha Allah. aad iyo aad ay u fiican yahay subaganeetu waa subag Ethiopian. hadaa jeceshahay timo qurux badan inaa yeelato insha Allah ku dadaal walaalahayga qaaliga subaga Ethiopianka. mar walba waxa jeclaa inaan niin faa'iideeyo oo waxa aniga aan ka helo adikan niila share gareeyo walaalahayga qaaliga insha Allah. channelka subscribe saara, like saara, share gareeya fiidiyoga haduu ku cajabiyo please share noo taaban oo share garee asxaabtaada kale la wadaag si aniga amaanta kuugu soo gudbiye adigana walaalahaaga kale tood u gudbi maadaama aniga hadaan jeclaysta adika aan ila soo wadaage adikana hadaa jeclaysatiin asxaabtiina la wadaaga. waa mahadsantiin walaalahayga qaaliga aad iyo aad ayaan jecelahay meel walbo dunida daafeeda ka joogtiin. waxa aniga ka faa'iido ama ay anfaco ma jeclina kaliya isku koob, waxaan jeclahay in walaalahaygan ay ka faa'iideystaan. waa kuwaas timihii maasha Allah wax qarasha oo maanta dhan dukaanka doonaysid ma aha, waana raqiis lacag badan ma joogo. waa soo gadanaysaa fridge-ka ayaa gashanaysaa walaalahayga qaaliga weegi hal mar ayaa isticmaalaysaa ayaa timahan taa qandiciso waana fudeed wax dhib maaha. waa qandicinaysaa timaha ku masaaj gareynaysaa marka ku masaajeysid bac ayaa ku xiranaysaa, laakiin hada bac kuma xiraayo cunugta aad ay u yar tahay walaalahayga qaaliga igu qaata marka bac kuma xiraayo insha Allah. saan ayaa ugu dhaafay marka uu engagone waa ka dhaqaaya walaalahayga qaaliga marka waa kaasa ka faa'iideysta insha Allah. shaamba alaala shaambada heysata ayaa ku dhaqi kartaa waana kaasa timaha wuxuu kaaga dhigayaa madow kalar madow qurux badan ayuu ku siinayaa maasha Allah. jajabka iyo siibka uu ka baabi'inayaa timaha waxaa jira salka dambe ka soo siibnaayo waxaas dhan ayuu ka hortagayaa marka insha Allah. sameeysta tijaabiya walaalahayga qaaliga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nafaqayaal badan ayaan soo wadaa insha Allah.